da'daydu waxay ka hooseysaa 20 sano. waxaan ku dhashay Muqdisho oo ah magaalo markii aan ku caqliyeystay ilaa hadda uusan amnigeedu waxba ka sooreynayn. horumarka ka jira ee dhinaca tacliinta iyo tiknoolajiyadana ay boqolkiiba wax badan uga dambayso caalamka intiisa kale. anigu waxaan ahay suxufi Soomaaliyeed oo soo tabiyay nolosha dhabta ah ee bulshadiisa. kama hadlayo maanta taariikhda noloshayda ee tani waa sheekada Ayuub Axmed oo ah 19 jir Soomaali ah oo aysan wax saameyn ah maskaxdiisa iyo hibadiisa gaarka ah ku yeelan duruufaha uu ku soo koray ee ka jira dalkiisa hooyo. wiilkan oo ku nool degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa ii sheegay in yaraantiisii uu jeclaa farsamada gacanta. 2019 oo ah markii uu dhameeyay dugsiga sare inta uusan jaamacadda bilaabanna go'aansaday in uu sii wato sameynta waxyaabo macmal ah oo uu ka farsameyn jiray alaabo dhammaantood laga heli kara dalka. kuwan waxaa diyaaradaha noocyada miigaga oo dagaalka waxa ku soo haray kan waa raadeerkii oo markabka ku shaqeynayay oo kala soconayay dhaqdhaqaaqyada ku soo dhow iyo fariimaha maraakiibta kaleeto oo kala soconayay dhanka hawada iyo badda dhexdeedaba. raadeerkan wuxuu wareegaa 360 digrii qoortiisa waa furan tahay. maaha nino saan u jeesanaya bas oo wareegi doonaa. sidoo kale kan waa anteenooyinkii signaalku ka bixi lahaa markabka. sidoo kale waa markabkan oo shaqeynaa diin madan buu leeyahay saa u naqshadeeyay. xawaarihiisana uma badna run ahaantii. hal abuurahan da'da yar ayaa muddo 2 bilood ah ku sameeyay markab nooca dagaalka ah iyo diyaarado iskugu jira miigag iyo helicopter. haddii uu helo aqoon dheeraad ahna Ayuub Axmed waxa uu aaminsan yahay in mustaqbalka uu sameyn karo maraakiib iyo diyaarado dagaal oo aan macmal ahayn si ay dawladaha kale u hunguriyeen madax bannaanida dhuleed badeed iyo cireed ee dalkiisa. waxaan inaa farsameeyo waxaa bilaabay waqtiga aan yaray. waxaan igu dhaliyay inaan jeclaay waxyaabaha la sameeyo inaan ku falaado. run ahaantii Soomaaliya ma lahan diyaaradahan miigaga ah sida F-16 iyo diyaaradaha helicopters badan ma lahan. sidoo kale maraakiibta oo diyaaradaha qaada ma lahan. waxaa jeclaay in aniga u soo saari doono insha Allah. sidoo kale waxaa jirto sidoo kale gobolka Gedo kaleeto Kenya oo kale waxay duqeydaa dhowr mar gobolka Gedo. Soomaaliya hadii la helayo diyaarado dagaal oo ay kaga cabsanayso Kenya meesha meel heensaas. Soomaaliya waxaa jeclaan lahaa in aan u sameeyo aniga diyaarado isaga dhici doonto wadamada dariska ah iyo kuwa ka fogfogba. amni la'aan, horumar la'aan, barakac, faqri iyo khilaaf siyaasadeed oo joogto ah waa xaqiiqooyinka nolosha ee dhabta ah ee ka jira dalkayga. horumar ay sameeyaan iska daaya malaayiinta ku noolna wali waxa ay la sii tacaalayaan sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi. haddana sidaas oo ay tahay waxaa jira dad ku fekeraya in dhibaatooyinka jira ay xalka nolosha ka dhex raadiyaan oo u bedelaan horumar ay kula jaanqaadi karaan dadka ay dawladahoodu u sameeyeen horumarka iyo amniga. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.